Sarkaalkan Israa'iiliga ah ayaa la afduubtay waxa uuna galay gacanta Xisbullah. Waa korneyl sare oo ka tirsan sirdoonka Israa'iil ee Mossad, kaas oo laga afduubtay magaalada Dubai kadibna ku dhacay gacanta ururka Xisbullah. Su'aasha ugu weyn ee markaasi la isweydiinayay waxay ahayd sidee sarkaal sare oo ka tirsan Mossad looga afduuban karaa Dubai kadibna loogu gudbin karaa Lubnaan iyadoo Israa'iil aysan waxba ka ogeyn. Waa mid ka mid ah howlgalladii sirdoon ee ugu adkaa ay fulisay Xisbullah xilligii Xasan Nasrullah. Muddo kadib ayay faahfaahinta dhacdadani si tartiib ah u soo shaac-baxday ilaa sheekadii oo dhan la ogaaday. Sheekadu waxay ku saabsaneyd sarkaalkan Israa'iiliga ah ee Hanaan Tenenbaum. Ninkan waxa uu qabatimay qamaarka, wuxuuna noloshiisa ku soo koobay ciyaarta qamaarka iyo cabista khamriga, isagoo dhaqaalihiisa oo dhan ku burburiyay. Waxaa lagu yeeshay deymo badan inkasta oo ahaa korneyl sare oo ka tirsan Mossad. Haddana dadka lacagta ku lahaa ayaa har iyo habeen daba socday ilaa uu markii dambe si lama filaan ah u helay fursad uu isagu u arkay in deymaha loo haysto uu isaga bixin karo. Saaxiibkiis ayaa maalin la soo xiriiray isagoo u bandhigay heshiis uu ku heli karo lacag dhan $200,000. Lacagtaasi waxay u ahayd riyo uu muddo dheer sugayay, maadaama ay xallin kartay dhammaan dhibaatooyinkiisa dhaqaale iyo deymihii ku aruursanaa ee lagu lahaa. Saaxiibkiis waxa uu ku yidhi, shaqadu aad bay u fududahay, waxaad qaadaysaa boorso xiran, meel ayaad gaarsiinaysaa kadibna lacagtaada ayaad qaadanaysaa. Markii hore Hanaan Tenenbaum wuu ka naxay markii loo sheegay in hawshu la xiriirto tahriibinta daroogada. Si kastaba ha ahaatee, saaxiibkiis ayaa isku dayay inuu dejiyo, isagoo ku qanciyay in maadaama uu yahay sarkaal ka tirsan sirdoonka Mossad aysan jirin cid ku dhiiran karta inay baarto ama shaki geliso. Waxaa loo qorsheeyay in markii hore uu u safro Belgium kadibna Dubai. Waxaa sidoo kale loo diyaariyay baasaboor been abuur ah oo ah kan dalka Venezuela si safarkiisa qarsoodi looga dhigo. Qorshihiisu wuxuu ahaa inuu Belgium uga baxo baasaboor been abuur ah si diiwaanada rasmiga ah aysan u muujin inuu ka baxay Belgium. Markii uu gaaray magaalada Dubai, waxaa garoonka diyaaradaha ku sugayay nin watay gaari nooca madaxda lagu qaado ah oo ah gaari raaxo oo qaali ah, kaas oo si toos ah ugu qaaday filo si gaar ah loo leeyahay oo si heer sare ah loo ilaaliyay. Markii uu gudaha galay, waxaa loo sheegay inuu halkaasi ku sugo qofkii u keenayay shixnada daroogada ah. Hanaan waqtigaasi maskaxdiisa waxaa ku taagnaa oo kaliya inuu tuuro dhiisha faqriga uu heli doono lacag dhan $200,000. Wuxuu dareemayay in ugu dambeyn uu helay fursaddii uu isaga saari lahaa deymaha iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee muddada hareeyay. Muddo yar kadib ayaa si lama filaan ah albaabka loogu soo garaacay. Isagoo u haystay inuu yimid ganacsadihii daroogada ayuu dhaqsi u istaagay si uu albaabka u furo. Laakiin markii uu furay albaabka, waxaa gudaha si xoog ah ku soo galay rag Muslimiin ah oo hubeysan, kuwaas oo isla markiiba qabtay sarajoogana ka riday. Waxaa si xoog ah loogu tuuray dhulka, kadibna gardaduub ayaa loo xiray, waxaana lagu duray daawo suuxdin ah oo ka dhigtay miyir-beel. Saacado kadib markii uu soo miirsaday ayuu si lama filaan ah isu arkay isagoo si toos ah u hor fadhiya Xasan Nasrullah, gacmahana ka xiran, sidoo kalena jooga gudaha dalka Lubnaan. Halkaas ayuu ku ogaaday in saaxiibkiisii heshiiska u keenay uu ahaa basaas u shaqaynaya Xisbullah, isla markaana uu qorshaha oo dhan ahaa daban loo dhigay isaga. Xasan Nasrullah wuxuu arrintaasi u arkayay guul taariikhi ah, sababtoo ah Hanaan ma ahayn askari caadi ah ee wuxuu ahaa korneyl ka tirsan taliska waqooyi ee Israa'iil. Sanad walbana wuxuu ka shaqayn jiray in ka badan 150 maalmood isagoo ah ciidamada kaydka. Taasi waxay ka dhigan tahay inuu hayay xog militari oo aad muhiim u ah. Waxaa arrinta xiisaha u yeelay waxay ahayd in 5 maalmood ka hor afduubka sarkaalkan Israa'iil ay qabatay dhoolatus militari oo ballaaran, kaas oo lagu soo bandhigay qorshaha duulaanka koonfurta Lubnaan iyo qaybo ka mid ah Suuriya. Taas macnaheedu wuxuu noqday in qorshihii dagaal, xeeladihii militari iyo xogihii muhiimka ahaa ee dagaalkaasi ay si toos ah ugu dhaceen gacanta Xisbullah. Kadib afduubka, Xasan Nasrullah wuxuu shir jaraa'id ku sheegay in Hanaan uusan ahayn kaliya sarkaal ciidamada cirka Israa'iil ka tirsan, balse sidoo kale uu ahaa sarkaal Mossad u qaabilsanaa la dagaalanka Xisbullah ee gudaha Lubnaan. Taasi waxay ka dhigan tahay in Xisbullah ay gacanta ku dhigtay sarkaalka Mossad ee mas'uulka ka ahaa dabagalka iyaga laftooda lagu hayay. Bilowgii, Israa'iil si adag ayay u beenisay dhacdada,
iyagoo ku adkaystay inaan la afduuban askari ama sarkaal ka tirsan ciidamadooda. balse maalmo kadib dowladda Israa'iil waxay qiratay inuu jiro nin Israa'iili ah oo la waayay. hase yeeshee waxay sheegtay inaanay wax mas'uuliyad ah ka saarnayn maadaama uusan ku maqnayn howlgal rasmi ah oo milatari ama mid dowladeed. dhanka kale, Xasan Nasrullah ayaa si tartiib u shaaciyay xogo dhab ah oo ku saabsan Xanaan Tanambum, taasoo cadaadis xooggan saartay dowladda Israa'iil. xaaskiisa, hooyadiis iyo carruurtiisa ayaa bilaabay inay si joogto ah dowladda u weydiiyaan halka uu ku dambeeyay iyo waxa ku dhacay. ugu dambeyn, kadib cadaadisyadii soo tarayay, Israa'iil waxa ay si rasmi ah u qiratay in Xanaan Tanambum la afduubtay. Xasan Nasrullah ayaa soo bandhigay sheeko kale oo ka duwan midii hore, isagoo sheegay in Xanaan aan si toos ah looga soo afduuban dalal kale, balse uu isagu si iskiisa u yimid Lubnaan isaga oo adeegsanaya baasaboor been abuur ah si uu uga soo qaado shixnad darooga ah. Nasrullah wuxa uu sheegay in markii Xanaan lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Beirut, intii lagu guda jiray baaritaanka, uu qirtay inuu yahay sarkaal Israa'iili ah. dad badan oo falanqeeya arrimaha sirdoonka iyo siyaasadda waxay aaminsan yihiin in Nasrullah uu sheekadan u adeegsaday inuu ka fogaado muran iyo cadaadis diblomaasiyadeed oo ka imaan kara Dubai iyo qaar ka mid ah dalalka Yurub, maadaama qirashada in afduubka uu ka dhacay dhulkooda ay abuuri lahayd fadeexad iyo khilaaf siyaasadeed oo weyn. ugu dambeyn, natiijadu waxay noqotay in Xisbullah ay gacanta ku dhigtay sarkaal sare oo ka tirsan Mossad iyo sidoo kale militariga Israa'iil. dowladda Israa'iil waxay isku dayday dhowr howlgal oo lagu sii deynayo, balse waa ay ku fashilantay oo iska caabin ayay la kulmeen. isla waqtigaasi, Xisbullah waxay sidoo kale afduubatay 3 askari oo Israa'iili ah oo lagu qabtay deegaanka Sheba Farms. sanado badan kadib, Israa'iil waxay ogolaatay wadaxaajood 29kii Janaayo 2004 iyada oo dhexdhexaadin ka timid sirdoonka Jarmalka. Xisbullah waxay ogolaatay inay sii dayso Xanaan iyo 3 askari, balse beddelkeeda Israa'iil waxa ay sii daysay 400 oo maxaabiis Falastiiniyiin iyo Lubnaaniyiin isugu jira. muddo kadib ayaa la xaqiijiyay in 3 askari ee la afduubtay ay dhinteen intii uu socday howlgalka afduubka, taas oo keentay in Israa'iil ay qaadato meydadkooda oo keliya halkii ay nolol ka filayeen. dhacdadan kadib waxaa soo baxday xog kale oo aad xasaasi u ah, taas oo muujinaysa in sirdoonka Iiraan uu ku guuleystay inuu qorto siyaasi sare oo horey uga tirsanaa dowladda Israa'iil. ninkaasi wuxuu ahaa Gonen Sejev oo horey u soo noqday wasiirka tamarta ee Israa'iil. Gonen Sejev wuxuu markii hore ahaa dhakhtar, balse markii dambe galay siyaasadda ilaa uu ka gaaray xil wasiirnimo. noloshiisa siyaasadeed ayaa si weyn isu beddeshay kadib markii lagu qabtay isaga oo dalka kusoo gelinaya kumanaan kaniini oo darooga ah, kuwaas oo si qarsoodi ah ugu qariyay sanduuqyo shukulaato ah. kadib markii maxkamad la soo taagay, waxaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah. dhacdadaasna waxay noqotay fadeexo weyn oo gilgishay gudaha Israa'iil. markii uu xabsiga ka soo baxay, Gonen wuxuu u guuray dalka Nigeria, halkaas oo dib uga bilaabay shaqadiisii dhakhtarnimo. muddo kooban gudaheed ayuu si lama filaan ah isugu bedelay nin taajir ah oo haysta hanti badan. arrintaas oo dhalisay su'aalo badan iyo shaki ku saabsan halka uu dhaqaalaha ka soo galay. baaritaano dambe ayaa lagu ogaaday in Sejev uu si qarsoodi ah ula shaqeynayay sirdoonka Iiraan, isagoo ka iibin jiray xogo muhiim ah oo xasaasi ah. waxaa lagu ogaaday inuu Iiraan siiyay macluumaad la xiriira tamarta, gaaska dabiiciga ah, amniga xarumaha shidaalka iyo sidoo kale xiriirada ganacsatada Yuhuudda ee ku nool dalka Nigeria. dhacdadan ayaa noqotay fadeexo kale oo culus oo gilgishay gudaha Israa'iil, maadaama nin horey wasiir uga ahaa dowladda lagu eedeeyay inuu xog sir ah u gudbiyay cadowga dalkaasi. waxay ahaataba ninkii wasiirka ahaa waa la wacay, waxaana loo sheegay in xil kale loo magacaabi doono. sidaas ayuuna ku tegay Israa'iil isagoo filaya mar kale in dib loo soo xasuustay oo wasiir laga dhigayo, balse halkaas ayaa lagu qabtay, waxaana lagu xiray xarun xabsi oo ay leedahay sirdoonka Mossad. sirdoonka Iiraan waxay sidoo kale gudaha Mossad ka qorteen basaasiin kale oo caan noqday, kana mid ahaa nin loo yaqaano Agent X, magaciisuna uu ahaa Bin Sajir. ninkan oo asal ahaan u dhashay Australia ayaa u guuray Israa'iil kadibna ku biiray Mossad. wuxuu watay baasaboorro iyo aqoonsiyo badan oo kala duwan, taas oo ka dhigtay qof ku habboon howlaha sirdoonka.
markii dambe Mossad waxay ogaatay in xogo badan oo sir ah uu u gudbiyo Iiraan iyo Xisbullah. Baaritaan kadib waxay ogaadeen in xogaha ay ka soo baxayaan Australia, halkaas oo Sajeer joogay. Waxaa loogu yeeray Israa'iil iyadoo loo sheegay inay u baahan yihiin caawintiisa si loo qabto basaaska xogta bixinaya. Markii uu Israa'iil yimid ayaa isla markiiba la xiray, waxaana lagu riday qol gaar ah oo si adag loo ilaaliyo laguna magacaabo qolka 15aad. Qolkaasi waxaa loogu talagalay maxaabiista khatarta ah ee sirdoonka Israa'iil doonayaan inay nolol ku hayaan si ay xog uga helaan. Qolka waxaa 24 saac ka shaqaynayay 3 kaamiradood oo xitaa musqusha hadduu galo laga arkayay. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa la soo wariyay in kaamiradihii laga ilaalinayay qolka xabsiga uu ku jiray si lama filaan ah ay u dameen. Markii ciidamada ammaanku gudaha u galeenna waxay heleen bin Sajeer oo isku dardaray gudaha musqusha qolka uu ku xirnaa. Ilaa iyo maanta geeridiisa waxaa hareeyay siro iyo muran badan. Qaar ka mid ah ayaa aaminsan inuu isdilay, halka kuwo kalena ay tuhunsan yihiin in Mossad ay dishay si loo aamusiyo xogihii qarsoodiga ahaa ee uu hayay. Dhanka kale waxaa sidoo kale jira tuhun sheegaya in sirdoonka Iiraan uu si qarsoodi ah u gaaray gudaha xabsiga si loo tirtiro loona ilaaliyo basaasiintooda kale ee ku dhex jira sirdoonka Israa'iil. Haddii aad iga dalbataan sheeko gooni ah oo dheer ayaan idinkaga soo samayn doonaa Agent X. Su'aasha ugu weyn ee weli taagan waxay tahay yaa dilay Agent X? Miyuu isagu isdilay si uu uga baxsado ciqaabta, mise Mossad ayaa dishay si ay uga aargudato khiyaanadiisa? Mise Iiraan ayaa gudaha xabsiga ku qaarajisay si ay u ilaaliso basaasiinteeda kale ee ku dhex jira sirdoonka Israa'iil? Haddaba daawaday, haddii halkan aad nala soo gaartay waa ku maasanta daawashada muuqaalka. Haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqatay channelkeena Xalana Media, fadlan nagu soo biir oo subscribe dhaho, furo gambaleelka oo rukuma sid muuqaaladeena mar walba ay kuu soo gaaraan. Like saar muuqaalkan, share garee oo saaxiibada la wadaag. Waa mahadsantahay.